sheekadan waxay igu dhacday maalin maalmaha ka mid ah. Waan soo labistay waxaana soo aaday meeshii aan ka shaqaynayay. Waxaana ahaa mid ka shaqeeya meel massage ah ama dadka loogu masaajeeyo oo aan ka ahaa security. Meeshaas waxaa ka shaqayn jirtay gabar lagu magacaabo Laura oona ahayd gabadha meeshaas iska lahayd. Waxayna igu tiri wax yar kadib ayaan bixi rabaa. Waxaana ku dhahay okay ma xuma. Waxayna igu tiri adiga meeshan ma ku caajistid miya waxna ma ku dareentid miya aakhiraadii wax inay joogaan. Waan la yaabay markii waxaas ay tiri anigana ma ahayn mid aaminsan waxyaabahaas reer aakhiraadka iyo waxyaabahaas. Waana la yaabay waxaan ku dhahay waxaas wax jira ma ahan. Waxayna igu tiri waxaas dad badan oo meesha imaaday ayaa sheegay. Ani naftirkeyga waxaan dareemaa inuu qof kaleeto meeshan inala degan yahay amaba ruuxan iyo waxaas ay meeshan inala degan yihiin. Waana sababta aan ku nacay meeshan inaan habeenkii joogo ama aan habeenkii seexdo. Ani haddaba waan kuu sheegay dhacday markii aad habeenkii yara caajisto waxaad si fiican u fiirisaa kaamirooyinka. Waxaadna arki doontaa waxyaabo badan oo ka yaabiya. Dood badan oo aan isdhex marnay kadib waa iska baxday iyadii waxaana meesha ku soo haray keligay. Balse waxaa jooga dad qaar ka mid ah dadkii loo masaajeynayo oo xoogo meesha ku yara nasanayay. Meeshii ayaan iska fadhiyay ilaa xoogaho inta ay dadka iska baxayaan. Ugu dambeynna waxaa baxay qofkii u dambeeyay oo dadkaas ka mid ahaa. Waxaana la gaaray saq dhexe oo habeennimo. Waxaana bilaabay shaqadeedii ahayd security-ga iyo ilaalinta meeshaas. Waana soo baxay si aan u kormeero taasoona ah shaqadayda. Qol kasta ama meel kasta waxaan ahaa mid si fiican u fiirinaya. Hal mar ayaa waxaa soo gashay dabeel aanan garanaynin iyo inaad moodo inuu qof i haayo. Waxaa kaloo soo galay qabow aad u daran heer ay xaaladaydu istaagto. Mana ahayn qabowgan qabow si dabiici ah ku imaaday oo wuxuu ahaa qabow aan la yaabay meel uu ka yimid iyo qaab uu yahay iyo si uu u socdo aan garan waayay. Aad ayaan u qaboobay jirkeyga oo dhanna waa uu isbedelay. Anigii dhanna waan isdhaqaajin waayay waana jareeyay. Waxaana qabowgaas la socda waxyaabo kale oo la yaab leh sida dareemo aan dareemayo oo cabsi ah. Lugahayga xitaa waan dhaqaajin waayay. Anigii dhan waxaad moodaa in la igu dhagan yahay heer aan gaaray inaan iska ooyo. Ilaa aan kasoo gaaray darbigii isbana aan dhiibin waxaan ahaa mid isku dayayo. Gadaasheeda ayaan fiiriyay balse qofna ma uusan joogin oo meesha waxa ay ahayd mid cidla ah. Ilintii aad iga soo daadatay anigana aad ayaan u cabsanayay. Gadaasheeda maadaama uusan waxba joogin waxaan sameeyay inaan soo baxay ayaan soo aaday dhankii kaamirada maadaama ay gabadha igala dardaarantay inaan kaamirada si fiican isha ugu hayo. Gacmahayga ayaan afka yara saartay si aan wax yaro qabow xitaa wax yaro qandac aan ooga helo. Waxaana aaday kaamiradii ayaan shiday. Waxaana bilaabay inaan fiiriyo kaamirada weliba si fiican aan u baaro. Habeenkii oo dhan isha ayaan kaamirada ku hayay ilaa aan arkay wixii ugu yaabka badnaa oo aan inta aan meeshan joogay aan arko oona ahayd sariirihii dadka loogu masaajeynayo mid ka mid ah oo iska dhaqdhaqaaqayso aadna mood in la dhaqaajinayo. Waan soo cararay qolkii ayaan imid. Waxaan arkay sariirtii oo meesha taalo. Anigii waan yaabay. Waxaana bilaabay inaan gacanta saaro aan dhaqaajiyo bal si aan isku dhaho bal sidaan qof u dhaqaaji kar miyaa jiro. Waxaan dhawrniyo wax kaa khaldan adiga caadi ma tiid miya. Waan yaabay. Waxaana dareemayaa dareemo aad u la yaab leh. Indhaha ayaana isku yara qabtay. Waxaan is dhahay cabsidaan ku haysa maxay tahay ilaa aan dareemay gacan i taabatay. Haddii aan fiiriyay waa gacan qaab daran aadna moodo wixii ay gabadha sheegaysay waa cabsida ahaa. Dareenkeyga ayaa aad u sii kordhay. Cabsideeduna waxay noqotay mid aad u sareyso. Dhidid aanan ihaynin ayaa iga yimid. Cabsideeduna waxay noqotay mid aanan innaba caadi ahayn. Aad ayaana u jareeyay wadnaha ayaana aad ii garaacmayay. Meelaha haddaan fiiriyay waxba ma joogo. Waxaan isku dhahay warniyo maad waalantahay maanta maxaa kaa khaldan. Haddii aan marba gadaasheeda fiiriyo waxaaba taagan nin aan la yaabay moodana wixii ay gabadha sheegaysay. Dhankeyga ayuu u soo dhaqaaqay
hadalna afkiisa kama soo baxaynin. Ma jirin waxaan ku qiyaasay xilligaas, waxa uuna i tusay sidii uu ula dhaqaajinayay. Wejigiisa ayaa ahaa midkii iigu darnaa oo iiguna cabsida badnaa abidna aan arko. Waxa uu igu soo dhaqaaqay, weliba igu soo dhowaaday, asaga oonan wax hadala afkiisa ka soo baxaynin, keliyana muujinayo calaamado. Anigii awood ma lihi, ma isdhaqaajin karo, aad ayaan u dhibaataysnaa markaas. Wejigiisa unbuu igu soo fiirinayay, awood ayaan isku yeelay, hal mar ayaana kacay, waana soo fakaday anigoo aad ninka uga cabsanayo. Hal mar ayaan albaabka ka soo baxay, waxaana soo aaday dhankii kaamirada, waxaana arkay wixii aan isla markii hore arkay. Si fiican ayaan ugu celceliyey bal si aan u arko wax ninkaas ku saabsan, laakiin maanan arag. Waxaana arkay markii aan meesha fadhiyinan keligay ahaa. Maalintii dambe markii la gaaray shaqadii waan isaga tegay, balse waxay ahayd meeshii igu la yaabka badneyd oo aan ka shaqeeyo. Sheekadaasna qofna maanan u sheegin si aysan dadku iigu malaynin qof waalan ama qof wax ka khaldan yihiin. Waxaana bartay in cabsi kaste oo qof cabsanayo ay jirto sabab ka dambeyso.